koox fanaaniin oo xalay bandhig faneed ka dhigi lahayd magaalada Burco ayaa baaqday kadib markii rabshado ay ka dhaceen goobtii loogu talagalay in laga dhigo bandhigaasi waxaana khasaare la gaarsiiyay baabuurka ay saarayeen fanaaniintaasi. rabshadahan ayaa dhacay waqti dadweynihii daawan lahaa bandhigaasi ay goosteen tigidhaantii lagu geli lahaa showgaasi. maxamed siciid BK oo ka mid ah kooxdan fanaaniinta ayaa Home Cable TV uga waramaya sida wax u dhaceen iyo khasaaraha la soo gaarsiiyay dhinacooda. horta anagu Burco markaan nimi waxaan rabnay inaan show ku qabanno qolada maamulka waan la kulanay soo qurux badan bay noo soo dhaweeyeen showgina way noo ogolaadeen inaanu ku dhigno meesha iyagoo habeenkii hore naga joojiyay balse xalay markaanu isniri gala ayaa dad banaanka joogay ayaa gaarigina naga jajabiyay anaguna gudii hoteelka ayaanu gali weynay saadarteed baanu u soo noqonay iyadoo waxna naloo geystay gaarigina nala ka jajabiyay wallahi ka dadka naga soo gaaray wuu fudud yahay laakiin kii gaariga naga soo gaaray aad u khasaare badnaa inkastoo darawalku naga sigtay laakiin kii gaarigu aad buu burburay maya bulshada reer Burco aad iyo aad bay mahadsan yihiin laakiin waa wax loogu talagalay waxaan saa u sii ridan maaha laakiin kadinka markaanu isniri ka gala gaariga gala gudaa gala unba gaariga muraayadu way noo dalacnaayeen dadkii inaanu qancino oo fanaaniintu ay qanciso u heesto oo hawshii la dhameeyo ayaa loogu talagalay kabacdi maxaa la heesaaba gaarigiiba wana la ka jajabiyay nafla caari baan kula soo cararnay markaa hoteelkii way jiraan gaarigu u badan yahay laakiin jugjug iyo dumarka naxay mooye wax kale saas nooma soo gaadhin waxaanu ka koobnayn 9 qof. BK wuxuu mar kale ka hadlayaa sababta habeen hore looga baajiyay dhigida bandhig faneedkan ay dhigi lahaayeen. gudoomiyuhu si fiican buu noola hadlay xamarjawna soo dhaweeyay wuuna nala hadlay wuxuu yidhi anaa idinka joojiyay buu yidhi habeenkaa hore marka inaan wada kulanno oo aynu ka wada hadallaan doonaya arrinta lafteeda oo malaa hawl dee ammaanka ku saabsan buu ka joojinay markii dambena wuu noo fasaxay. maxamed siciid BK waxa uu tilmaamayaa sida uu arkaan fanaan ahaan waxaan ku dhacay iyo dhibaatada soo gaadhay. wallahi anigu BK ahaan markaan cabiro ama kooxduba ay sheegto dee fanaaniinta la wada xiiseynayay iyo buuqii meesha ku wada farabatay ayaa sidaa dhagaxa keenay jacaylun baan ku sababi karaa anigu laakiin ma odhan karo aan ammaan dareeyahay laakiin waa bulshadii oo jacayl noo qabta darteed baa gaarigina naloo ka jajabiyey sidaa darteedna loo keenay. geesta kale taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Burco Mr. Ganay ayaa sheegay in aan khasaaro ku koobnayn gaariga kooxdu wadatay oo kaliya balse ay jiraan gaadiid badan oo khasaare la soo gaarsiiyay xalay taasina ay ka dhalatay ayuu yidhi rabshado ay sameeyeen kooxo dhalinyaro ahi. bandhig faneedkan oo ay waday kooxda fanaaniinta ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeday maalmihii u dambeeyay culimada iyo imaamyada masaajidada magaalada Burco kuwaas oo ku tilmaamay munkar dambi ah. Kays Axmed Dagaale, Home Cable TV, Burco.